بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما خميسة أو جمعة أي سوق ليسو لبدا بيشا إبريل سنة كالبكون لباتنية لح أو كوبهجن أفر يتمنك بيشا شوال سنة كون أفر بقولا فرتنية تضبا تاريخ ذي هجرية كسو دوادا مركله هي برامج كي قبانها قضبدا عاو برامج كأن ذين كوها إنه وحا كمدا وعيدمدا إيران xuutiyiinta iyo xisbullah oo caawa weerar saddex aflah oo loo adeegsaday sawaariikhda ay ku rakiban yihiin madaxyada firdha gantaalada balastiga iyo diyaarada droonisa ku qaaday Israa'iil halkaasi oo 5 milyan oo qof ay ku carareen goobaha gabaadka looga galo gantaalada ciidamada Iiraan oo dhankooda sheegay in ay duqeeyeen 7 saldhig oo Mareykanku ku leeyahay gobolka Bariga Dhexe Trump oo qiray in Mareykanku uu burburiyay boondadii ugu weyneyd Iiraan isla markaasna wax ka daran ay ku soo socdaan wadankaasi haddii uusan aqbalin heshiis Israa'iil oo dhankeeda wacd ku martay in ay xoojinayso weerarada ay ku hayso Iiraan iyo Lebanon hogaamiyaha xuutiyiinta Cabdimaalig al-Xuuti ayaa caawa jeediyay hadal culus oo ku aadan colaadda ku halcaysa Bariga Dhexe ruushka oo doonaya in qubaradiisa nuclearka uu kala baxo Iiraan xilli dagaalku sii xoogeysanayo sheekada ugu dambeysay barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly. And ومدحوينها مريكانكا دونالد ترامب oo si xun u bahdilay isla markaasna hadallo jees u jeediyay madaxweynaha wadankaasi Faransiiska Emmanuel Macron dhamaan wararkan iyo waliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intayna hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa caawa warbixin gaar ah oo ku saabsan qubaro arrimaha militariga siyaasadda iyo diblomaasiyadda oo kala duwan oo ka hadlaya dagaalkan sida uu ku soo afjarmi karo laakiin waxaynu ku bilaabaynaa caawa Israa'iil jiif ma jiro waxaana lagu jiraa hadda munaasabadda Passover-ka la yiraahdo waa munaasabad diimeed Yuhuud ay leedahay Iiraaniyiintu waxay wacd ku mareen in aan la hoyan oo aan la jiifan caawa weerar saddex aflah ayaa waxa qaaday Xuutiga Iiraan iyo sidoo kale Xisbullah haddaba aynu eegno wararkii ugu dambeeyay amuurtan iyo waxa laga qoray gaar ahaan warbaahinta Iiraan iyo sidoo kale warbaahinta Israa'iil telefishinka dawladda Iiraan ayaa baahiyay in ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ay qaadeen weerar culus oo gantaalaha oo lagu beegsaday magaalooyinka Tel Aviv iyo Haifa kuwaasi oo qayb ka ah mawjadii 19aad ee howlgallada military ee ballanqaadka dhabta ah dufcadiisa afraad sida ay warisay wakaaladda wararka Faris ee laga leeyahay wadankaasi hay'adda warbaahinta Israa'iil ayaa iyana waxay sheegtay in weerar ballaaran oo sawaariikh ah lagu soo qaaday Israa'iil waxaana la sheegay in ugu yaraan 3 ka mid ah gantaaladaasi inay ahaayeen nooca ay ku xiran yihiin madaxyada firdhaha ee miisaankooda uu yahay ilaa iyo 100 kilogram taasi oo sababtay khasaare weyn oo soo gaaray dhowr goobood oo Israa'iil ku yaal warbaahinta Israa'iil ayaa sidoo kale waxay warisay in ka badan 5 milyan oo Israa'iiliyiin ay ku carareen goobaha gabaadka looga galo gantaalada ee dhulka hoostiisa inta lagu jiray weeraradan ugu dambeeyay telefishinka Kanal 14 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa sheegay in weerar kale oo gantaal laga soo qaaday dhanka Yemen iyadoo ciidamada difaaca Israa'iil ay sheegeen in nidaamyada difaacu ay ka shaqeeyaan qabashada gantaaladaasi taliska difaaca gudaha Israa'iil sidoo kale wuxuu xaqiijiyay in la hawlgeliyay
seeriga digniinta ka bixaya gantaalada kaas oo laga maqlay magaalooyinka bartamaha Israa'iil sidoo kale waxaa la sheegayaa in laga maqlay dhanka badda mootan ee Jordan xigta Tel Aviv iyo magaalada Qudus ee la haysto war kale oo ay baahisay warbaahinta Iiraan ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ay ku dhawaaqeen in ay beegsadeen saacadihii la soo dhaafay 7 saldhig oo ciidamada cirka ee Mareykanku ay leeyihiin iyo sidoo kale kuwa kale oo Israa'iil ay leedahay isla wararka Iiraan wakaaladda wararka IRNA ee laga leeyahay waddanka Iiraan ayaa soo xigatay ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan oo sheegaya in Iiraan si adag ay uga jawaabi doonto weerar kasta oo lagu soo qaado warshadda nuclearka ee Bushehr xagga Israa'iil afayeenka ciidamada Israa'iil ayaa gordhaweyta wuxuu sheegay in ay sii xoojin doonaan weeraradooda si ay u beegsadaan nidaamka dhaqaale ee Iiraan isagoo xusay in cid kasta oo u hanjabta Israa'iil ay noqon doonto bartilmaameed waxaana intaasi uu ku daray in ay sii xoojin doonaan duqeymaha iyo beegsiga kaabayaasha gantaalada riddada dheer ee Iiraan iska horimaadada Xisbullah iyo Israa'iil haddii aynu u weecanno ururka Xisbullah ayaa ku dhawaaqay in ay gantaalo ku garaaceen saldhigyada Amiyad iyo Filon ee ku yaalla waqooyiga badda Jaliil sida ay sheegeen bayaan ururku uu soo saaray weerarkan ayaa waxaa qayb ka ahaa howlgallo kale oo military oo lagu fuliyey waqooyiga Israa'iil sida uu sheegay ururka reer Lebanon ee Xisbullah ayaa waxaa kale oo uu sheegay in ay fuliyeen weerar kale oo xagga cirka oo loo adeegsaday 3 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaasi oo lagu beegsaday fariisimaha ciidamada Israa'iil ee ku yaala deegaanka Khirbat Ma'ah ururka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in weerar kale ay ku qaadeen goobo kale oo ciidanka Israa'iil ay ku sugnaayeen oo ku yaala koonfurta waddanka Lebanon war coladan la xiriira dowladda waddanka Ruushka ayaa qorsheynaysa in Mareykanka iyo Israa'iil ay ka codsato xabajoojin ku meel gaar ah si loo daadgureeyo shaqaalaha dheeraadka ee Ruushka ee ku sugan warshadda nuclearka ee Bushehr ee Iiraan ku taal sida ay warisay goordhaweyto wakaaladda wararka ee RIA ee laga leeyahay waddanka Ruushka madaxa shirkadda nuclearka waddankaasi ee Ruushka ee Rosatom Alexei Lekhachev ayaa sheegay in wadooyinka safarka ee la marin doono shaqaalahaasi loo gudbin doono Israa'iil iyo Mareykanka isla markaasna la adeegsan doono dhammaan kanaalada si loo hubiyo in xabajoojinta aad loo ilaaliyo inta ay socoto kolonyadaasi ama ay ka baxayso waddanka Iiraan waxaa sidoo kale uu tilmaamay in wareegga ugu dambeeya ee daadgureynta ay ilaa 200 oo qof la qorsheynayo toddobaadka soo socda Ruushka ayaa horay waxa uga joogay ilaa 400 oo saynisyahannada xaruntaasi oo saami uu ku leeyahay laakiin waxaa la sheegayaa in 200 horay loo sii waday imikana 200 ay ku dambayso kuwaasi oo haatan la doonayo in halkaasi laga wado wahagaag haddaba dagaalkan ka socda gobolka bariga dhexe ee caawa galay habeenkii 35aad sidee u dhammaan doonaa iyadoo dagaalkan laga cabsi qabo in uu isku bedelo dagaal ballaaran oo Mareykanka iyo Iiraan dhanka dhulka isku farasaaraan bacdama hadda duqeymo la isku hayo haddaba warbixin qubur ay ka hadlayso oo arrimahan la xiriirta waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Cabdi Fataax Mawlid Xaaji Cabdi hanaanka dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ay ka dhanka ah Iiraan ayaa muujinaya inuu ku sii socdo marxalad go'aamin lahayd natiijadiisa halkaas oo dhinacyadu ay ka raadinayaan jid uga baxaan halkii ay ka raadin lahaayeen guul iyadoo ay jiraan hadallo iskhilaafsan iyo aragti la'aan cad oo ku saabsan sida uu ku dhammaan doono iyadoo cadaadis caalami ah uu sii kordhayo sida ay sheegeen falanqeeyaal la hadlay Al Jazeera waxaa jira xaalado badan oo suuragal ah laga bilaabo heshiis siyaasadeed ilaa hakad ama xitaa sii socoshada dagaal aan lahayn xalka mandabeys ah sida uu sheegay khabiirka siyaasadda bariga dhexe Mahjoub Al-Zuwairi dagaalku wuxuu si dhab ah u galay marxalad iska caabin laba dhinac ah maadaama saameyntiisa dhaqaale siyaasadeed iyo bani aadamnimo ay si weyn u muuqdaan
Zuwairi ayaa intaas ku daray in xaaladdan ay u riixayso in loo gudbo marxalad cusub oo ku aadan cadaadis caalami ah oo sii kordhaya iyo sidoo kale awoodda maamulka Mareykanka ee sii wadista iyo sharciyeynta dagaalka taasoo go'aamin karta sida uu ekaan doono damaadka la filayo. Amina Qamooriya oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa soo jeediyey 3 xaaladood oo lagu soo afjaro dagaalada kuwaasi oo kala ah xal military, heshiis ama joojinta dagaalka iyadoo aan heshiis la gaarin. Qamooriya wuxuu meesha ka saaray in dagaalku si degdeg ah go'aan looga gaari karo isagoo u arka in ay u badan tahay in la gaaro heshiis adag ama in la hakiyo dagaalka maadaama sababihii dagaalka ay weli jiraan isla markaana ay dib u kici karaan iyadoo su'aalo muhiim ah ay ka taagan yihiin doorka marinbiyoodka Hormuz iyo suurtagalnimada in lagu xiro xabad joojin. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa horay u balan qaaday inuu weerari doono xarumaha korontada ee Iran haddii Tehran aysan u furin marinbiyoodka Hormuz maraakiibta caalamiga ah isagoo 2 jeer kordhiyay waqtiga kama dambaysta ah kan labaadna uu ku egyahay 6 Abriil si loo gaaro heshiis nabadeed isagoo ku hanjabay inuu burburin doono xarumahaas haddii taas la fulin waayo. Marxaladaha ugu adag ee dagaalka cilmi baaris sare oo ka tirsan xarunta daraasaadka Al Jazeera Liqa Maki ayaa xaqiijiyay in dagaalku gaaray marxaladiisii ugu adkeed taas oo ah marxaladda bixitaanka halkaas oo dhinac walba uu isku dayayo inuu abuuro sawir guul ah oo uu bandhigo taageerayaashiisa iyadoo aan jirin tanaasul wadajir ah isla markaana la sii wado siyaasadda cadaadiska halkii laga gaari lahaa xal. dhinaca kale Ibrahim Frihat oo ah professor ku takhasusay khilaafaadka caalamiga ah ee macadka daraasaadka sare ee Doha ayaa aaminsan in xaaladda ugu macquulsan ay tahay dagaal goosgoos ah oo aan si buuxda u dhamaaneyn isla markaana aan si joogto ah u socon. Frihat ayaa arrintan ku sababeeyay inaysan jirin aragti cad oo ku saabsan cidda go'aamin karta dhammaadka dagaalka iyo kharashka sare ee ku baxaya marka loo eego faa'iidada gaar ahaan Mareykanka. Negar Murtazavi oo ah cilmi baaris sare oo ka tirsan xarunta siyaasadda caalamiga ah ee Washington ayaa xoojisay aragtidan iyadoo sheegtay in mugdiga ku jira go'aamada maamulka Mareykanka iyo iskhilaafka mowqifyadiisu ay adkeynayaan saadaalinta dhammaadka halka Iran ay doonayso inay hubiso in dagaalku uusan mar kale soo laaban ayna u aragto sii socoshada dagaalka doorashada ugu ammaanka badan. sidoo kale khabiirka arrimaha militariga General Ilyas Hanna ayaa sheegay in Iran xitaa haddii ay la kulanto khasaare military ay doonayso inay ka fogaato guuldaro istiraatiiji ah iyadoo doorashada ugu weyn ee hadda ay tahay adkaysiga isla markaana ay suuragal tahay in isku horimaadku sii socdo xitaa haddii hal dhinac uu joojiyo dagaalka. ikhtiyaaro furan Salih Al-Muteri oo ah madaxa xarunta Al-Madar ee daraasaadka siyaasadda ayaa soo bandhigay 3 xaaladood oo kama dambays ah sii socoshada dagaalka daalinta ah xiisad xadidan oo la xakameeyo ama qarax ballaaran oo gobolka ah isagoo tilmaamay in kharashka sare ee dagaalka uu riixi karo mid ka mid ah 2 xaaladood ee hore. Hiam Nawaz oo horay la taliye ugu ahayd waaxda difaaca Mareykanka ayaa ku xirtay sababaha dagaalka dhaqanka aan mas'uuliyadda lahayn ee Iran ee gobolka iyo awoodeeda military iyo nuclearka iyadoo sheegtay in haysashada awooddaas ay tahay arrin walaac leh. Nawaz ayaa tilmaamtay in mugdiga ku jira mowqifka Mareykanka uu muujinayo rabitaanka maamulka ee ah inuu furan ka dhigo doorashooyinkiisa isaga oo aan shaacin wadooyinka uu qaadayo taasoo muujinaysa in dagaalku uusan si dhaqso ah ku dhammaan doonin. iyadoo aan jirin dhammaad cad oo dagaalka ah falanqayntu waxay isku raacsan tahay suurtagalnimada xaalado ay ka mid yihiin hakad dagaal daalin ah ama isku horimaad goosgoos ah xilli go'aanka kama dambaysta ah uu ku xiran yahay dheelitiro adag oo isugu jiraan xisaabaha military iyo cadaadisyada siyaasadeed iyo dhaqaale iyadoo aan jirin tilmaamo cad oo muujinaya in go'aan dhow la gaari doono. عبد الفتاح مولود حاج عبدي HBN Online TV. وهاجاج عبد الفتاح aad buu mahadsan yahay warbixintaas halkaas aynu kaga gudubno waxaan u gudbaynaa gordhow hogaamiyaha xoutiyiinta Cabdimaalik Al-Xuuti oo war culus caawi jeediyay waxaan kaloo idin haynaa ugu yaraan 100 dadka qaanuunka ka shaqeeya iyo aqoon-yahano u dhashay waddanka Mareykanka oo ka digaya dagaalkan oo ay leeyihiin xitaa dhanka qaanuunka saameyn weyn ayuu ku leeyahay. Macron
oo caawar baahinta oo dhan ay ka hadlayso kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si xun ugu jeesjeesay haddaba maxay tahay sheekadan la yaab kale ee ka soo yeertay Trump intaan u gudbin wararkaasi iyo waliba wixii warah ee imika soo dhaca ee ku saabsan dagaalka bariga dhexe intaan u gudbin aynu ku hakanno qadar xayeysiin daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad kala socon kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka. Warbixino qoraal ah, warar, faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. Ku xirna HBN oo ka dhigo helkaaga wararka. Waa hagaag intaan u gudbin wararka kale barayn eegno war intaynu hawada ku jirna imika soo dhacay. wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan Abbas Araghchi ayaa waxa uu sheegay in burburinta iyo duqaynta lagu hayo kaabayaasha rayidka aysan ku qasbi doonin Iiraan inay isdhiibto waxaana tani ku soo aadaysaa iyadoo gordhaweyto madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku andacooday in ay burburin doonaan xarumaha iyo kaabayaasha muhiimka ah ee waddanka Iiraan kadib markii uu qiray in Mareykanku ay burburiyeen bundadii ugu weyneed ee waddanka Iiraan ee isku xireysay magaalada Tehran ee caasimadda ah iyo sidoo kale gobolka Eeriyada Karaj sida halkan kaga muuqatana wada arkaysaan bundadii oo la burburiyay taasi oo muujinaysa in markaasi burbur weyn uu soo gaaray laakiin arrinta la yaab kale waxay tahay in Israa'iil ay tiri weerarkan kamayna qayb qaadan waa markii ugu horeysay ee weerarka dhanah Iiraan Israa'iil tirada kama aanan qayb qaadan arinta marka waxa loo fasirtay inay ka macno tahay Israa'iil inay ka cabsi qabto Iiraan inay beegsato kaabayaashan buundooyinka iyo goobaha kale ee muhiimka ah ee Israa'iil ku yaal ama Mareykanka dusha loo saaro waa hagaag markan bal hadda aynu eegno sheekada la xiriirta Mareykanka gudihiisa xaruntan la burburiyay iyo buundooyinkan la burburiyay iyo goobaha kaabayaasha oo la burburinayo ayaa waxa leeyahay waxa walwal weyn ka qaba sharci yaqaanada waddanka Mareykanka aynu eegno war amurtan la xiriira waa hagaag iyadoo dagaalka uu marayo meel aad u adag ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in buundadii ugu weyneed Iiraan la burburiyay mar dambana aan la isticmaali doonin waxaana uu sheegay in wax weyn ay ku soo socdaan Iiraan haddii aysan aqbalin heshiis iyadoo arrintan ay ku soo aadayso xilli madaxweynaha Mareykanka uu ku goodinayo in uu cardaadiiqaha ka dhigi doono gebi ahaanba goobaha tamarta iyo kuwa kale ee korontada laga dhaliyo ee waddanka Iiraan isla markaasna Iiraan uu ku celin doono casir jaahiligii ama xilliga dabka la shidan jiray arrimahani iyagoo ka ambaqaadaya in ka badan 100 khubaro dhanka qaanuunka oo dalka Mareykanka u dhalatay ayaa waxay ka digeen in dagaalkan Iiraan imika ka socda uu jabin karo qawaaniinta caalamiga khubaradan oo ku takhasusay sharciyada caalamiga ayaa warqad ay qoreen waxay ku sheegeen in dagaalka socda uu keenayo walaac weyn oo ku saabsan xadgudubyo halis ah oo ka dhan ah qawaaniinta caalamiga warqadan ayaa waxaa lagu daabacay madasha amniga ee Just Security Forum isla markaasna waxaa saxiixay aqoon-yahano caan ah qareenno hore oo dawladda u shaqayn jiray iyo khubaro dhanka qaanuunka oo militariga kuwaasi oo diiradda saaray doorka Mareykanka ee dagaalkan waxaa la sheegay in bilowga ololahani markii horeba uu ka soo horjeedo ama uu xadgudub ku yahay axadiga qaramada midoobay halka ficilada ciidanka Mareykanka iyo hadalada mas'uuliyiinta sarsare ay muujinayaan walaaca ku saabsan jabinta qawaaniinta caalamiga kuwa xuquuqda aadanaha iyo kuwa bini'aadantinimada waxaana jira baaliyir suurtagalnimada dambi dagaal warqaddu waxay sidoo kale iftiimisay waxyeelada sii kordhaysa ee soo gaaraysa dadka rayidka burburka deegaanka iyo qatarta gobolka oo sii kordhaysa khubaradu waxay dhaleeceeyeen hadallada mas'uuliyiinta Mareykanka ee xoogga saaraya awoodda dilka halkii ay ka eegi lahaayeen baaliyiri dhanka qawaaniinta iyagoo ka digay in arrintan ay wiiqi karto xeerka caalamiga ee ilaalinaya rayidka waxay sheegeen in hadallada qaar mas'uuliyiinta sarsare ee Mareykanka ay yihiin kuwa ka hor imaanaya xeerarka dagaalka oo doqonnimo ah isla markaasna mudnaanta siinaya dil oo kaliya halkii la eegi lahaa sharciyad taas oo ay ku tilmaameen mid khatar ah oo halisteeduna ay badan tahay way haddaba halkan dina dul istaagno waxa kaloo maanta la wareystay
nin khabiir ah oo arrimaha militariga wuxuu leeyahay mas'uuliyadda Mareykanka waxyaalaha ay ku dhaqmayaan waa dambi dagaal oo cad horta in la burburiyaa boondooyinka iyo warshadaha iyo goobaha korontada laga dhaliyo iyo goobaha shidaalka laga soo saaro iyo xarumaha biyaha lagu sifeeyo iyo cisbitaalada iyo waxaas oo dhan waa dambi dagaal madaxweynihii Mareykanka ay hadda wuxuu ku faanayaa in uu burburiyay boondadii ugu weyneed ee waddanka Iiraan weli wuxuu leeyahay wax ka weyn baa soo socda Iiraanta iyagu waxay leeyihiin wax walba oo dhaca taaka haddii la qaado 5 taaka qaadeenaa maanta markii la duqeeyay meeshaasi isla markii waxay duqeeyeen baqaaridii waaweynaa ee shirkadda Amazon ee ku yaala waddanka Bahrain saldhigyada militariga iyaga iska dhaaf oo ku socota 4 saac marka waxa leeyahay mas'uuliyadda Mareykanka hadda maanta la xisaabtamin mustaqbalka maalin kamid ah maxkamadda la soo taagi doona ninkaas qabiirka oo nin Amerikaan oo waliba kordheel gaaray waayo wuxuu waxa meeshan ka socda wax caadi ma aha buu yiri وهجد عجبان الحوتي habeen kasta oo khamiis ah oo jimcaha soo galayo uu hadlaa caaw muxuu sheegay aynu eegna war abuurtan la xiriira haddaba warbaahinta Yaman ayaa waxay sheegaysaa in hogaamiyaha Xuutiyiinta Cajmaariga al-Xuuti uu jeediyay hadal dheer oo loogu talagalay dagaalka ka socda gobolka Bariga Dhexe wuxuuna ku baaqay in la kordhiyo hawlgallada military ee wadajirka ah ee ay la wadaan iska caabinta ee ka dhanka ah Mareykanka iyo Israa'iil khudbad uu ka sii daayay telefishinka lagu magacaabo Al-Masirah ee ku hadla afka Xuutiyiinta ayaa waxa uu sheegay in weerar gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay yihiin kuwa si joogto ah Xuutiyiinta ay wadaan iyagoo la kaashanaya Xisbullah iyo sidoo kale Iiraan waxaana uu sheegay in loo baahan yahay tillaabooyinka ay noqdaan kuwa dhammaystiran wuxuuna yiri waa kuwa mideynaya oo muujinaya in si waajib ah ay u gudano yiri wadajir waana muqaddas buu yiri arintani dhaqdhaqaaqa Xuutiga ayaa Mareykanka waxay ku eedeeyeen inuu ka dambeeyo dhibaatooyinka shacabka Yaman haysta iyagoo la safan Britain iyo Israa'iil sida hadalka loo yiri waxay sheegeen in Washington ay adeegsanayso qalab goboleed oo ka dhan ah waddanka Yaman waxay kale ugu baaqeen shacabka Yaman inay ka qayb qaataan barnaamijyada waaweyn oo berri oo jimcaha ka dhici doona magaalada Sanca ee caasimadda waddanka Yaman waxaana la sheegay in loo baahan yahay dadku inay soo baxaan iyagoo muujinaya sidii markaasi gabi ahaanba loo taageeri lahaa iska caabinta waa tahay waayahay imika waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay alaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen waxaan leeyahay sheeko la yaab leh madaxweynaha Mareykanka madaxweynaha Faransiiska mar walba sibuu u duraa waliba hadda wuxuu ku soo daray ra'iisul wasaaraha Britain laakiin xalay arrin la yaab loo jeediyay wuxuu leeyahay Macron ayaan waxaan weydiistay buu yiri inuu noo soo diro ciidan iyo maraakiib dagaal si Mareykanka Hormuz loo furo laakiin meeshii uu ka hadli lahaa arrintaasi xoog u saari lahaa sheeko kale oo keenay hadda kor waxa dhacday qiza madaxweynaha Faransiiska oo booqanaya mid kamid ah wadamada Asia ayaa muuqaal waxa la qabtay xaaskiisa wajiga ka feeraysa sheekadiiba soo qaatay marka intaan tusin muuqaalkaas hore barta aynu daawano hadalka Trump iyo waxa uu ka yiri arrintan Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly, and still recovering from the right to the jaw. And I say, Emmanuel, we'd love to have some help in the Gulf, even though we're setting records in knocking out bad people and knocking out ballistic missiles. We'd love to have some help. If you could you please send ships immediately? No. We cannot do that, Donald. We can do that after the war is won. I said, no, I don't need after the war is won, Emmanuel. Many of them said, we'll be there after the war is completed. Way, wuxuu leeyahay waxaan wacay buu yiri madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxaan ku iri buu yiri Emmanuel waxaan u baahanahay caawimadiina laakiin wuxuu yiri Macron daanka la jibiyay xaaskiisa
si xun u garaacday buu yiri marka weli wuxuu ku jiraa buu yiri soo kabashadii Macron markaas wuxuu igu yiri maya anaga ma awoodi karna ma diri karna maraakiib dagaalku markuu dhamaado soo diri karna markaas waxaan ku yiri aniga uma baahnay markaas marka wixii dad badan ba hadda waxay leeyihiin dagaalku markuu dhamaado ayaan soo dirinaa maraakiib laakiin aniga ma u baahanahay markaas haddaba sheekada marka uu ka hadlayo Trump waa sheeka dhowr bilood ka hor dhacday inkastoo Emmanuel Macron uu leeyahay arrintan iska caadi ahayd laakiin muuqaalka aynu daawan Macron waa arkaysan xogaa sheekada wuxuu ka dhigay sheeka caadiyo albaabka diyaaradda la furi rabay isaga iyo xaaskiisii baa soo degi rabay waxaa la arkay iyadoo markaasi ku dhufanaysa feer qalka u gelinaysa xogaa wuxuu iska dhigay sheeka caadiyo dadku salaamaya laakiin balaayi waxay dhacday markay soo deganayeen jaranjarada ayuu dabcaya gacantii inuu u dhiibay si gacanta u qabsato laakiin haweeneydan macallinka u ahaan jirtay ee ka da'da weyn way u jaakirtay macnaha jaranjarta laga soo deganaya gacanta xoogaa weli muuse soo celin xoogaas adkeynaya xariif iska dhigaya moogta marka sheekadaas ayuu soo qaatay marka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu leeyahay ninkani wuxuu ka soo kabanayaaba feerki daanka loo geliyay laakiin sheekadan meeqa bilood ka hor bay ahayd marka madaxweynaha Mareykanka waa sababta loo leeyahay oo dad badan oo xitaa Amerikaan ah ay u eedeynayaan leeyahay ninkan caafimaadkiisa hal la baaro waxa iska galay waliba xalay isagoo ka hadlay arrimahan Iran ayuu Soomaaliya hadana ka hadlay wadad wuxuu yiri aqliyar 19 bilyan ayay ka dhaceen buu yiri Minnesota waa si hadalku u dhigay laakiin dad aqli liita sida wax u dhici karaan dhinaca kale marka la eego waxa kale la yaab lahayd xaaskiisa Melania Trump ayaa dhowr bilood ka hor waxay ka hadlaysay qaramada midoobay shir ku saabsan arrimaha adduunka iyo waxaas ka hadlaysay Soomaalida ka hadashay waxay sheegtay inay yihiin dad xarfaan ah oo mataqaan aqli badan oo wax qabsada hadalkii saygeed uu sheegay mid ka duwan bay sheegtay marka ayadana asagoo marka Soomaaliya wax u qoran ba dhowr sadar ba u qoran Soomaaliya marka ka hadlayo dawlad ma leh booliis ma leh way islaayaan maalin kasta xabad isku ridayeen intaas ba u qoran waxa muddo in intaasi intii loo soo qoray loogu dhijiyay meel way intaas ayaan caaw kusoo gabagabeynaya barnaamijkii qobanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama hore aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo